maantay oo taariikhdu tahay 9 Dhulhijja 1440 oo waafaqsan 10 August 2019 waxaanu isugu yeeray saxaafadda mowduucan ka hadlaynana wuxuu yahay oo aanu soo bandhigaynaa ummadda Soomaaliyeed waa ummad islaam ah waxay leedahay dhaqannadaas waxaa jira dhaqamo yar xoogaa sharciga islaamka qaarkood aan boqolkiiba boqol soo ah u waafaqsanayn haddaan tusaale u soo qaadno dhaqanka magta ummadda Soomaaliyeed waa qabaa'il walba ama qabiilo walba oo wadaagta magta waxay u dhaqantaa qaab xeer hoosaada oo u degsan sida badan ilaa ummaddu way isgaranaysaa way istaqaano dhaqan ahaan waa isgaranaysaa waxaa dhacda in qofka dhibanaha ah magta laga soo qaado qaybna la siiyo dhibanihii qaybna qabiiladu qaybsato qofkaas ama agoon ha noqdo ama qof muqdar ah oo aan agoon ahayn oo caadi ah noqdo labada dhaqanba waa jiraan waxaan marka soo bandhigaynaa ummadda Soomaaliyeed baaq aan ugu baaqayno inay arinta ka tanaasulaan oo ka baxaan ciddii samayn jiray ficlan waa ognahay waa la sameeyaa waana dhaqan jira in dhaqanka laga takhaluso oo laga guuro oo loo guuro cidda dhibanaha ah in la siiyo magteeda oo waxba wixii kharash dabcan iyadu waa gaar waa laga jarayaa wixii kale to in qofka dhibanaha farta laga saaro oo aan waxba lala qaybsan arintaas waxay dhashay in dhalinyarada sufahada ah iyo dadka maangaabka ah ee hubku gacanta u galay inay u furudayso inay wax iska laayaan iyagoo isku haleynaya in magtooda la taanaynayo oo qabiiladu qaybsanayso waliba lagu faano oo leeyahay insurance baan ku jiraa waana lagu ururinayaa waa lagu taanaynayaa erayadaas iyo wax la midka ay yiraahdaan ku faanaan kadibna dilkii iyo dhibaatadii ay furudaato waxaan marka ugu baaqaynaa ummadda Soomaaliyeed halkaan insha Allah u arki doonta inta nala joogta iyo inta arki doontaba inay dhaqanka ka guuraan oo u guuraan dhaqanka saldhigiisu uu yahay walakum fil qisaasi hayatun ya ulil albab halka ay u guuraan say u furudaato in muxuu ahayto laga nabad galo dadka sharka iyo shidada iyo dhibta ka shaqeynaya dhalinyarada caynkaas ah si aqligu ugu soo noqdo ummaddu kala badbaado dhaqankaas waa in la hirgeliyo faahfaahinta iyo arintan waxa dhalay iyo sababtay ku timi hadda saxaafadan in la qabto insha Allah nabadoonada ayaan uga baxaya oo faahfaahinay dhammaan ummadda islaamka oo meesha bitiga waa salaamaya assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi sheekha iyo nabadoonka iga horeeyay isku beel baanu ka soo jeednaa waxaanu ka soo jeednaa beesha Yoonis Diris shir beesha Yoonis Diris ay ku gashay magaalada Qarxis go'aamadii ka soo baxay waxaan u soo bandhigaynaa dadweynaha halkan warqadahan aan ku hayo laba warqadood weeye midna waxa saxeexay 30 nin oo waxay yihiin nabadoonada iyo siyaasiyiinta iyo culimada midna waxa saxeexay 33 nin oo waxay yihiin xeer beegtidii loo diray arrimaha tolka inay ku soo shaqeeyaan saxiixadoodii way saxiixeen qodobo ay ka soo saareen haddaan idin akhriyaa qodobadaas qodobka koowaad wuxuu yahay beesha sidii sheekhu u sheegay beelaha Soomaaliyeed bay ka mid tahay beelaha Soomaaliyeed ee dhaqamada ay leeyihiin way iska dareemeynaa xagga magaca ku saabsan inagoo dad islaam ah oo shariicada islaamka haysanay baa haddana wuxuu la xal gees mari jiray sida magta aan sharciga ayaan ugu fadhiin beesha qodobka koowaad waxay isla qaadatay in magaha lagu fariisiyo shariicada islaamka qofkii qof camdi u dila in la dilo koow qofkii qof khada u dila in dayadiisa la bixiyo
kii la cafiyo oo xarigga laga sii daayo oo laga cafiyo dilkii in magta la wada bixiyo kii beesha ka mida oo dhintay xaqiisa inuu isagu leeyahay oo aan cid la wadaagta iyo cid la qaybsanayaa jirin magti qaabkaas baa beeshu uga heshiisay deegaanka in la wada ilaashado oo deegaanka ummadda ka dhaxeeyo in la wada ilaashado waxyaalaha horumarinta dalka ah in laga wada shaqeeyo khaas ahaan waddada ayl iyo dangoreyo u dhaxaysa oo la dhisayo waddada beeshu go'aan waxay ka qaadatay hareeraha in la iska taago sida ayaamihii hore xoogaa buuqa iyo muranka iyo uga dhacinayan ka dhicin waddadaa waa ogtihiin sheekh aadan gaadaale baa awal qaybteed ka shaqeeyey xoogaa buuqyo iyo waxyaalaha ka dambeeyana way jiraan go'aankee dowladda ka qaadatay ay ka qaadatay beeshu wuxuu yahay dowladda iyo beesha iyo shirkadda shaqaynaysa cid u dhaxaysa inayn jirin beeshuna ay nabadgelyadeeda iyo wanaaggeeda ka shaqayso waxaana u wakiilatay sheekh aadan maxamed ciise inuu oday uga yahay cid kale oo ku soo faragelin kadhana ayaan jirin hareerahan la iska taago laga wada shaqeeyo go'aankaasaa la qaatay nabadgelyadana laga wada shaqeeyo beesha dhammaanteed waddadan hareer la iska taago cid hadhow aan beesha dhexda wax ka qaban karinna ayaan faraha soo gashan beeshu diyaar hadday culimo tahay hadday nabadoon tahay waddadaa waa la isu taagay in laga wada shaqeeyaa la rabaa dowladdana saasaan ogeysiinaynaa dowladda iyo shirkadaha ka shaqaynaya iyo beeshana cid u dhexaysaa jirin xagga magtana waxaan ummadda ugu baaqaynaa islaamka oo deegaamada degan in arrintaa la wada qaato qofkii camdi wax u dila in la dilo annaga gaar waxaa noo ah kii la cafiyo oo dilkaa laga cafiyo inay beeshu wada bixiso kii annaga dhexdeena la ka dilo ama agoon ha ahaado ama cid kale ha ahaadee xaqa laga soo qaado in ciddii dhaxashay ay leedahay oo aan cid kaloo la qaybsanaysaa jirin arrimahaas iyo wixii kale oo haatan dheer bay beeshu ku heshiisay in sidaa looga wada shaqeeyo ummaddana waa ugu baaqaynaa ummadda waxaan ugu baaqaynaa in magaha lagu fariisiiyo shareecadda islaamka oo aan cid gees kama dhaajirin qofkii qof dilo camdi u dilo in tiirka lagu soo xiro qofkii isaga cid laga dilo in dayadiisa la siiyo ummaddana waa ugu baaqaynaa ummaddu inay arrintaa qaadato oo nala qaadato hadday haatan ay wax naga dhiman yihiinna lagu daro hadda anoo wax khaladnana hadda bini aadan baanu nahay haddii alla kuu roon yahay nala ka sixi karo laakiin muhiimadda waxaanu ku soo koobnay in sharciga islaamka la waafajiyo magta arrintaas waxaanu aaminsannahay ninka dhibtu ka taagan tahay oo qaatilka ah oo caamidka ah oo camdiga wuxuu dilay ninkaasi dhibaato ummadda ku haya Soomaaliyeed meesha bu'da jiran iyo xarunta koobta jiranna halkaa weeye ninkaas haddii laga cafiyo dilka oo dadka dhiigga ku leh dilka ay ka cafiyaan nabadoonnada waxaan ka codsanaynaa ninka inaan la difaacin ee sharciga islaamka loo daayo ilaa waa la isku duubaa oo qabiilo walba hareeraha iska taagtaa oo waa la dhoofiyaa oo meelahaas laga tuuraa oo ummadda waxa isku laayay halkaa weeye ninka haddii dilka laga cafiyo diyadiisa waa 100 diyadaas isagaa lagu leeyahay magta isagaa lagu leeyahay warka cad saa weeye waana qarharantahay shariicada islaamku waxay ka dhigtay 40 halaad oo dhalaya iyo 34 jir oo qaalma ah iyo 35 jir oo qaalma ah wixii tacsiir iyo wixii kale to waa gaarkeeda ninka hantida isagaa lagu leeyahay sharcan waana meesha jiran ninkan khadda wuxuu dilay oo khadda uu ka dhacay oo qalbi jabay isaga bilkulliyanba ma qabo qabiilada qabto iyo dadkaas heshiiska ku ay inay magta wara bixiyaan ninkaas marka difaacnayaan laga gelin ummadda Soomaaliyeedna meel ha iska dhigto tacsiirna ha ahaato ummadda ha ku kala badbaado sidaa ha lagu xiro arrintaas haddii diyadaas ay ka bixinayso qabiiladu hadday ka bixinayso dawladda iyo maamulada waxaan ugu baaqaynaa ninkaas in xabsiga la dhigo inta diyadiisa la helayo si ummaddu kala badbaado haddii la oranayo bacmadowdiisa ha qaato ummadda ha dhex maro oo wixii ha urursado oo halka laga dhigayana waa gaarkeeda waa furan tahay oo anigu bir ku goyn mayno oo ummadda baa iska leh marka waxaan ugu baaqaynaa dawladduna inay go'aan ka yeelato qofka noocaasa waa aragtay ummadda waa wada musallax hubka la warasitaa dawlad xoog loo dadka caburisana lama hayo arrintaas qaraaraha laga yeesho qabaa'ilkuna ha ka shiro ummadda Soomaaliyeedna taladaas ha nala qaarato ha wara qaateen Allah idin barakeeyo
aad baa u mahadsantihiin salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh arrintaas culays magta culays weyn bay dadka ku haysay ummadda oo dhan oo Soomaaliyeed oo dhaqankaasi ku dhex jiro diintoodana way ku haysaa waxay ugu haysaa ilmihii agoonka ahaa magtiisii ma arko dadkii maatada ahaa magtoodii ma arkaan kii xoog lahaa magtiisii muwaariska ahaayo magta lahaa ma arko nin kibray oo kibir wax u dilay waxa weeye koobtaasaa la geeyaa waxa la yiraahdaa naga qaata 500 halaad 300 halaad 400 halaad arrintaasi diinteenna waxbay u dhimaysaa ogaadana qofku si kasta oo loo difaaco oo shishada loo marsado mudduu leeyahay go'aan muddadaasna dhaafi maayo haddii la yiraahdo naga hooyana haddaan u qorayn waqtigiisii uu uga hareen waa la masaabaxaya waayo xugun ilaahay weeye muddaa loo gooyey muddadiina ka hormari maayo arrintaa ha lagu kalsoonaado ilaahay go'aankiisa ha lagu kalsoonaado iyo diinta uu soo dejiyey adduunyadan markii la abuuray ilaahay buug buu ka daba keenay kitaab buu ka daba keenay wax kasta oo aad aragteen adduunka wixii la sameeyo kimbaniyada yararka bini aadanka wixii ay sameeyaan waxay u sameeyaan buug ay raacaan ilaaha qaadirka ahi meeshan kitaab uu soo dejiyey adduunkan kitaabka ha la raaco kitaabka waa haysanay cala duul muslim baynu nahay laakiin xeerar baa ina ku dhex jiray waxba ina ka khalkhaldami jiray marka la yiraahdo shariicada islaamka halka kaliya ma aha laakiin waa meesha ugu xanuun badan meeshaas waxyaabo badan baa jira waxa jira nikaaxi gabdhaha soo galaya waxa soo galaya mucaamalaad kale waxa soo galaya jinaayaad baa soo galaya waxyaabo badan baa soo galaya waxaan leenahay dhaqankeena cala duul sharciga islaamka aynu ku salayno haddii aynu ku salayno ogaada ilaahay baa inoo fududeynaya wax walba taa intaasan kaga baxaya waxyaabaha kale oo dhaqanka iyo maxaan ku yiraahdaa bay'ada iyo deegaanka ah dadkii shiray oo beeshii shidhay go'aan bay ka soo saareen wax badan oo hadda aan laga hadlin oo ku hoos jira baa jira dad badan baana la wadaaga kaligood meesha waa la degan yahay dad badan baa wadanka wada degan waxaan leenahay wixii halka ka soo baxay oo xeerarka qodobadii la akhriyay iyo kuwa kale oo dadka u dhow ay akhrisan doonaan oo waraqaha ku qoran ha lagu dhaqmo oo wadanka nabadgelyadiisa iyo wadanka nooleyntiisa iyo deegaankiisa iyo maxaan ku yiraahdaa ka hadlaya taasna intaasan ka oranaya arrinta wadada oo hadda nabadoon ciise ka hadlayay wadada iyadoo aan ninna ogeyn oo hadal hayn nin baa meesha yimid oo xaaray oo wada ka bilaabay ikhtirac buu isaga la yimid ikhtiraciisa khayr allah siiyo waxay gaadhay in dad badan ku soo yaacaan waxaan leenahay qofka bini aadanka ahi wixii uu ku guuleysto oo isagu fikradeeda la yimaado waa lagu tixgeliyaa haddii qofkii wax keenaba dhabarka laga jabiyo maanta dambe cidina wax isku daymayso cidina wax keeni mayso ninkaas waxaan leenahay ha la garab galo cidii kale oo waxaysaa waa ma aha in la leeyahay cid kale ma iman karo meeshii cidii waxaysaa waa u imanaysaa isagay soo abaaraysaa isaga shaqada hayay isagay la maxaan ku yiraahdaayay wax la qorsheysay isagay shaqada isugu imaanayaan shaqadii waa furan tahay laakiin meesha nin baa ka shaqeeyay ikhtiraacada lahaa halkaas loo soo maraya wadada loo soo maray albaabka laga soo galay ninka weey iyadana sidaas ayaa go'aankii deegaanka dadkii deganaa ay soo gaareen weeye waxaan leenahay waa soo dhaweynayna cid kasta oo wax horumarina wada laakiin wadada sax ah soo mareen baan leenahay waxaan kaloo leenahay ummadda Soomaaliyeed ugu baaqaynaa arrintaas waa in ay ka kaaftoomaaniin xeerarka ah dhul badan bay ka jidhaa waa ognahay dad dhintay oo dadku waaba isdhaandhaameen dad dhintay oo sabeen laga xiri jiray baa jira meelaha qaarkood marka waxaan leenahay ilaahay aanu noqono diinteena waa haysanaa oo cala dul diinta waa haysanaa laakiin dee waxba ayna ka dhaxgalgaa waxyaabaha ku dhex jira aan iska safayno sidaasaan ummadda islaamkaana ugu baaqaynaa dada kan xeerka gaarana waxaan leenahay Allah ku guuleeyo ilaahidankiisa ummadda kale oo la degan oo reer nugaaleedna dadka hadda waxaan maqlaynay deegaanka karkaar qolyo ka mid ah inay iyaguna ay arrintaas oo kale u fadhiyaaniin Allah ku guuleeyo waan leenahay ha fahamsiyo diinta maxaan ku yiraahdaa dadka kale oo maxaan ku yiraahdaa reer nugaaleedna waxaan iyaga ka bilaabanaysaa waxaan leenahay walaalayaal aan ku dayda haddii wax daliilaysan ku jiraanna waxa weeye de wasixi ka dhaan haddii wax uun yar jiraan laakiin waa in lagu daydo oo shariicada islaamka cala duul aynu wada qaadanno sidaasaan isku ognahay wabillahi tawfiiq arrintan shariicada in la qaato waxaan wadaa muddooyin ku dambaysay horta magacaygu waa absac oo ka socda dalna
waxaanu damdooyinkii u dambaysay inay beelaha reer puntland mudug shalay waxaa jira go'aamo laga soo saaray meelo ka mid ah gobolka ka oo la lahaa dowladda iyo dhanka siyaasadda marka loo fiiriyana siyaabo kale ayaa fasir looga bixinaya markay su-aasheedu waxay tahay maxaa xilligan ku soo beegbeegay dadku inay arrintaas halmar miidiyahan u yimaadaan shareecada la qaato wayse dadku waaga hore islaam ahayn بسم الله الرحمن الرحيم dadku islaam waa ahaa waana yahay dad takfiiriya oo dadka hadda manhaj u sameynaya manihin masaladan waa la yaqaan ummadda way iskaranaysaa Soomaaliyeed Soomaali Maryooli waxba kuma kala qarsoona masaladan qaab waxa loogu dhaqmi jiray xeerar ah bulshada qofka kamida oo wax dila qaab baa laga dhaqmi jiray qofka la dilana hantida laga soo qaado qaab baa laga dhaqmi jiray qaababkaas marka waxba ka qaldana oo sharciga khilaafsanaa oo maslaxad iyo dan la biday say iyaga la ahay dadka xilliyo horena la dejiyay qaabkaas marka xilligan laba jaan qaadi karo aynu joogno sababtoo ah waxa batay bidcadu bidcay dhashaa munkarkuna munkar buu dhalaa masalada qaldana masala qaldan oo kale ay dhashaa ma ujeedaan marka arrintaas in laga guuro oo bilkulliyan sidii ilaahay u dhigay subxaanahu wa ta'aala loo dhigo